madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya Jalla Maxamed Siyaad Barre kadibna waxa halka iminka ka bilaabmaysa munaasabadii oo isdabayaal ah oo ay u horeyso salaamtii qaranka Soomaaliyeed oo ay qaadanayaan mas'uuliyiinta dawladdu kadibna waxaanu barnaamijkeena idin la socodsiin doonaa si aanu idinka bixino sawir idinkaga filan kara inaad ka bogataan macluumaadka halkan lagu diyaariyay ee loogu dabaaldegayo 18 guurada kacanka waxa uu qortay 1969 ummadda Soomaaliyeedna waxa uu u soo hooyay muddadii uu jiray guulo aad iyo aad u ballaaran oo lagu naalooday marka ummaddu waxay xustaa maalin sanad kasta maalintii uu kacaanku qortay oo ay u samayso fantasiye iyo dabaaldeg ballaaran oo loogu abaalgudayo kaalintii uu ka qaatay horumarinta dalka ee dhinac walba leh dhammaan ummadda Soomaaliyeed mas'uuliyiinteeda shacabkeeda aqoon-yahanadeeda iyo kaadirkeeduba waxay xusaan maalinta ayada ah waxaan lagu xasuumaa oo lagu marti qaadaa adduunka aynu saaxiibka nahay iyo kuwa aynu gacalka nahayba waxaa munaasabadan oo aad loo diyaariyay isugu yimi mas'uuliyiinta qaranka ka sokow ummadaha aynu xiriirka wanaagsan ee sokeeye leenahay marti sharaf laga casuumay iyo malaayiin qof oo marti sharaf Soomaaliyeed ah waxaa diyaarsan xoogagii metelayay dhammaan qaybaha uu ka kooban yahay mujtamaca Soomaaliyeed si ay dabaaldegan kaalintooda uga qaataan madaxweynaha
jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya Jaale Maxamed Siyaad Barre oo hogaaminaya guddiga siyaasadda golayaasha qaranka mas'uuliyiinta sare ee dalka saraakiisha sare ee ciidamada qalabka sida iyo bulshaweynta Soomaaliyeed ayaa dhammaantood waxa ay diyaar u yihiin in ay fagaarahan maanta ku daawadaan amaba ay dhoolatus guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ku wada samayso darajo kastoo ay leeyihiin iyada oo lagu dabaaldegayo 18 guurada kacanka marti sharafta waxaa loo agaasimay munaasabadda xanaan aad u qurux badan oo ku habboon xanaan loo agaasimo munaasabad qaran amniga iyo quruxda meesha ayaa aad loo sugay si loo tuso cid kasta oo arki karta in kacaanku uu 18 jirsaday kadibna ummaddiisu ay maanta dhammaanteed hanatay maamulkeedii oo aanay cidnaba u baahnayn kooxaha muusiga ee qaranku ay dhiibeen salaantii qaranka ayaa waxaa soo dhaqaajiyey hogaamiyihii cutubiyada kala gedisan ee bulshaweynta iyo cutubiyada ciidamada qalabka sida si uu u dhiibo tirada guud ee ka qaybgelaysa dabaaldegan iyo hanaanka loo diyaariyey wuxuuna iminka u soo maqan yahay fagaaraha hortiisa si uu u dhiibo warbixin guud oo arrintaa ka hadlaysa marka uu noqdo waxaa soo bedeli doona inta cutub ee maraysa dad matelaya oo mid waliba uu sito calanka kooxda uu wakiilka ka yahay kadibna waxaa bilaaban doona fantasiyihii oo dhammaantii u xidhiidhsan hab silsilad qurux badan leh oo loo diyaariyey oo loo agaasimay waxaynu iminkaa wada sugaynaa in uu hor yimaado fagaaraha hogaamiyaha guud ee matelaya xoogagaas oo dhan markii uu sheegay tirada ka qaybgelaysa oo uu ku tilmaamay 35,000 oo qof oo matelaya dhammaanba noocyada bulshadu ay u habaysan tahay ayuu dalab weydiistay inuu soo dhaqaajiyo oo fagaaraha soo hormariyo markaa iminka waxaa inagu soo maqan oo aynu sugaynaa dhammaan kooxaha maraya oo dhan ee isugu jira ubaxa ardayda caafimaadka isboortiga shaqaalaha ururada bulshada ciidamada kala gedisan ee qalabka sida oo calaamadoodii oo dhan oo calankii jamhuuriyadda uu ka horeeya ay halkaas soo maraan kadibna waxaa si qurux badan inoogu bilaaban doontaa munaasabadii 18 guurada kacanka fantasiyihii ballaadnaa ee loogu talagalay
ahaanna waxay maaritaankooda ku soo bandhigeen dhaqamada ummaddu ay leedahay iyo ololayaashii waaweynaa ee dalka laga fuliyey sida barashadii amaba qoristii afka soomaaliga tacab soo saarka ka faa'iidaysiga khayraadka badda shubista ceelasha raacista xoolaha iyo xanaanayntooda iyo dhinaca wax soo saarka beeraha kadibna iyada oo maqsuud laga wada yahay ayay dhammaysteen hawshii ay ku lahaayeen dabaaldegga 18aad ee cunashada kacaanka waxaa iminkana idinku soo maqan kooxihii sitay caalamada guud ahaan ee matelayey dhammaan bulshaweynta maanta halkaasi ku dabaaldegaysa waxaay soo hogaamin doona ciidanka muusiga qaranka kadibna waxaa halkaa ka bilaabmi doona dhammaan xoogagii 35 ka koobnaa ee ka qaybgelayay dabaaldegan marka laga reebo ubaxa kacaanka oktoobar waxayna u bilaabmayaan sidan booliisku waa ilaaliyaha nafta iyo maalka Soomaaliyeed waxa uu leeyahay cutubyo kala gagadisan oo u qaybsan ka hortagista khatar kasta oo soo food saarta dadka oo loo yaqaano daraawiish iyo birjaaxayaal aan daawano sida ay uga qaybgelayaan damaashaadka kacaanka
xoogga dalka Soomaaliyeed waa difaacayaasha sharciga ama gurteed xorriyaddii dalka si loo helo ciidankii difaaci lahaa ummadda iyo qarannimadeedaba. ciidankaasi markii dambe waxa uu yeeshay laamo kala gegedisan oo qayb waliba ay u xil saaran tahay hawl gaar ah oo ummaddu ay u baahan tahay ha noqoto dhinaca difaaca iyo dhinaca ilaalinta midhaha kacaankaba. waxaa ciidankani uu ka kooban yahay ciidamo ilaaliya badda, hawada, cirka, dhulka iyo isaga oo leh qayb waliba qalabkii ay adeegsan lahayd iyo aqoontii ay ku kasban lahayd horumarkii dalku uga baahnaa ee difaac iyo dhaqaale dhismo. waxaana iminka aad aragtaan dayuuradihii oo ku dabaaldegaya ciidamada korkooda. haddaynu soo qaadno ciidanka cirka ee dalka Soomaaliya waxaa la dhisay 15 Febraayo sanadkii 1960 waxaana ciidan leh aqoon iyo agab buuxa oo uu ku fuliyo xilka uu hayo qaranka, waxaana ka qayb galaa horumarinta dalka iyo dadkaba. ciidanka badda waxaa la aasaasay 16 Febraayo sanadkii 1964 si loo helo ciidan suga ammaanka xeebaha dalka oo ka soo gudashada xilkiisana ciidanku waxa uu kaalin laba ilaawaana ka qaataa door kasta oo ummaddu ay marayso horumarinteeda. markii ay dhacday abaartii dabadheer dadkii la dejiyey dhulka xeebaha ah ciidanka badda ayaa wuxuu u noqday macallin isagoo u huray agabkii uu adeegsanayay iyo aqoontii uu lahaaba. ilaa iyo maantana waxay macallimiin u yihiin kooxaha loo jiheeyey wax soo saarka dalka ee dhinaca ka faa'iidaysiga khayraadka badda. waxa ay ku hawlan yihiin inay ilaaliyaan guud ahaanba xeebaha iyo biyaha Soomaaliyeed iyagoo hawshaa dheerigaana u haya ummadooda. ciidanka difaaca cirka oo iyaguna ka mid ah ciidamada lagu dhaarto amaba cutubiyada lagu dhaarto ee dalku uu leeyahay iyagana waxaa la abuuray sanadkii 1976 bishii 9aad ayaa la aasaasay 27 markii la ogaaday in loo baahan yahay ciidan dhulka degan oo difaaca hawada iyo ciidanka cirka ku hawlanba. cutubiyada aanu ka soo sheekaynay oo dhammi waa kuwan ka qayb qaadanaya dabaaldega 18aad ee xulashadii kacaanka iyo daawasho wanaagsan. ina hormaraya ciidanka cirka oo la aasaasay 15 Febraayo amaba bishii koowaad ee sanadkii 1960 waxaana ciidankaasi uu hantay kaalintii ummaddiisu ka sugaysay dabaaldegii waana kaa hortiina maraya. bilaabmay ciidankii badda iyo difaaca xeebaha waxaa la abuuray 10 Febraayo 1964 waxaana ciidankani sidaynu hore uga soo sheekaynay uu kaalin mugle kaga jira difaaciisa ka sokow horumarinta ummaddiisa ee dhinac walba waana macallinka loo adeegsado ka faa'iidaysiga cilmiyada kala gedisan ee badda lagaga manaafacadsado khayraadka ku jira waxaana u ayday ummaddiisa oo dhan dhinac walba marka laga eego waana kuwa hortiina maraya.
badda waxaa ku sii xiga ciidanka difaaca cirka oo la abuuray kii bishii sagaalaad ilaa jiritaankoodiina kaalin mugle ayay kaga jiraan difaaca guud ee dalka iyo dhismaha iyo horumarintaba waana kuwa bilaabmay guutooyinkii amaba cutubiyadii ciidamada lugta oo ah kuwa salka u ah ciidan kasta oo la dhisayo marka hore ciidan wuxuu ka bilaabmaa infantry amaba ciidanka lugta kadibna waxa uu yeeshaa laamihiisa kale ee caawiya ciidanka lugtu markii uu howlgal samaynayo kursinaan ilaa 12 abril 1960 oo la abuuray cutubkii ugu horreeyey oo ciidamada lugta u badnaa waxaa ciidankani uu kaalin mugle kaga jiraa difaaca dalka horumarinta dhismaha iyo dhaqaalinta ummaddiisa waxaana maanta uu ka qayb gelayaa dabaaldega wadankan
hoggaaminayey dhammaan cutubyadii marayey dabaaldegga ee nooc walba lahaa waxaa fagaaraha loo banneeyey ciidankii danab kumaandoos oo ah soo majeystayaasha dab kasta u babacdhiga ciidankaasi waxa ay leeyihiin muusiko u gaara oo ku xidhan afkooda iyo addinkooda waxaana jiridhaco ku wada jabtaa cid kasta oo ay soo hormaraan oo arka waxaana ka naxa cid kasta oo cadowgooda bal aan daawanno damaashaadkan sida ay uga qayb galaan danab waana kuwan
bilaabanaya ciidamadii adeegsan jiray qalabka kala gedisan ee milatarigu isticmaalo oo leh nooc kasta oo hub yeesho waxaa dul rabaasi doonta dayuurad aad u qurux badan oo la rogrogayo oo muujinaysa hannaan kasta oo dayuuradi u dagaal gasho ciidamadaasi waxa ay ka koobnaan doonaan inta qaybood ee ay u qaybsan yihiin hubka ciidamadu waxa ugu soo horreeya madaafiicda goobta qoryaha la yidhaahdo ee loo adeegsado difaaca hawada sare iyada oo dhulka la isticmaalayo waxaa ku xigi doona saababka eryada dayuuradaha kadibna waxaa soo mari doona hubkii kale ee filtarigu isticmaali jiray oo ay ka mid yihiin qoryihii toogashada toosan iyo kuwii kale ee badda iyo biyahaba mari jiray sida baabuurta gaashaaman taangiyada iyo waxyaabaha la midka ah quruxda ay leedahay qaab abaabuleedkaasi ay bandhigga u samaynayaan ciidamadaada qalabka sida waxaanu jecelnahay inaad nala daawato oo aad ka dheregto warka
Sheba,